وريا الكدير قصع كجرو على الوين مبوحة فريري عطاش nadaafadaada ku dadaal bahashaan bahoshay anaa adii qaliina maray ani waa xanuunsanay igu soo caanis jirliskuma caynayaan jirliskuma caay geedaada urayso ilmaha kaska u soo ridi dhiig ka qulqulaya oo malaxda ku dhalatay iska nadiifi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelkeena goobta media walaalayaal waxaa maalmahan dambe baraha bulshada ku soo batay iska qabsi Catoos iyo xaaskiisa iyo fartuun balbalaarka Catoos iyo xaaskiisa baraha bulshada waxyaalo aan hore wax loogu arag ayay ku soo kordhiyeen live la isku dilayo iyo ay lis dhaafsanayo waxa ugu sii darsamay baraha bulshada waxa ugu sii darsamay fartuun balbalaarka oo ayadana mataqaanaa oo ayadana waxyaalo fara badan oo aan la soo koobi karin Catoos iyo xaaskiisa dusha ee ogrid maxay leedahay ila dhageyso fartuun balbalaarka aniga waxba iga macunaysid maslaxo waxba aniga liga ma waana magaalada hadaa naagtid maslaxo naag waxa loo aqaanaa naagtii lagu heedo kugu soo doonto ku dhow soo kac adaa ku baahanahay naagta taatid lagu haaga igu soo doono naaya soo baxay de naaya feerweyn yahay feerweynaanta waa la keensada abaay sharmuutinimo iyo silgado feerweynaan lagu ma keenin xoolaheega cuna abaay istareex biyaha qabow iyo bariiska hilibka ariga saaran xoolaheega waaye ma aha mid la soo tuursado meel loo fadhiistay aniga weli ku macaanooyi caatinta xamal oo xalay ku caana camal ku macaanin weli waa ku dhoodhooraya sidii ukunti oo kale adiga live gal sharmuutadaas korka urayso saas waaye cusmaan afkaaga kala baxorta naaga ku haysto cusmaan kuma haysto badaan cusmaan kuma jiro Catoosha wax ka tir waa cusmaan rabtaa ma cusmaan oo xad dhumanaysa bax u tag cusmaan waxa ka soo shid waxa iga siin bax u tag ha ku fug dabadii afkana ka fug cusmaan haduu Catoosh wax ka tiri waaye dabadii afka ka fug cusmaan sharmuuto waaxid lagu shuu mashaaktada meelaha soo istaag horta qofka markii la caanay caatin fiican la soo caaya naaya maslaxoy caatin fiican dharkaaga qaaraan lagu keenay dharkaaga iida ku iidaysa qaaraan lagu keenay cunuga adi dhalina iida dhabta soo saartay ana jibka duubay cunugeega waaye cunug inuu aabihiisa ku diido moogid miya camera in la soo galiyo dharkan oo maloo gelinayo loo dhahay dharka gadgaduudina in la diido moogid aniga dhar qaaraan kuma tuugsadi makeup-na qaaraan kuma marsadi laamiga inta istaago saan war waaye ma dhiyani ma tuugsada adi ana edabteeda wixii iraw fadhigayga sigu imaana adi aniga dadka social media horta dhahayaan ilmahan fartuuna waxaan ilmo ma dad waaweyn waaye arooskoodana qandaraas waa runta ana sheegano ilaahay ka cabsanayo arooskaasna qandaraas waaye aroos xaq ilaahay ma aha aroos ay diinta ogoshahay ma aha wax diinta ka soo horjeedo waaye aroos waxa la garan jiray kii dad isku meheriyo la imaado aroos mehera la arki jiray waa qandaraas naaya horta gurigaaga oo saas u dhaxyaalo uraayo ee dharka wasaqo dhaxyaal naaga gurigeeda cunto aan karsaneenin naaga alaabteeda dhaqan karin naaga dharkeeda dhaqan karin naaya horta marka naag la caatimaysid adiga istoo sax marka naag la caatimaysid naaya naagtii waxa tahay fadhigan gurigan aa ku fadhisay aa dhahday aniga xala ilaa hada bogeegi beerkeega isku dhigan bariis iyo baasto waa lii diiyay waa lii qalay mishaari Catooshna wuxuu dhooyaa aan garoora ku gadaa aan dhahay Catoosh caanaha gasac u gad waa u gadi kartaa caanaha gasac u gad ee mishaari in supermarket kan oo u gadee ee u karisi naagtii hal waqti loo ogol yahay tahay hal waqti cunto loo ogol yahay naagtii waxa tahay cusmaan Catoosho in liitole abo u maleyneen caangirim ugu jiro naag siilkeeda ka warhaasama wahe anigoo afar cunug dhalaa siilkeeda ka warhaya wixii ka baxay wixii ka galaayo naag siilkeeda ka warhaasama watiide lacagta qaliinka hebela dhiibay isbitaalka inta uu naga qaatay inta kale uu noo cafiyay daawadana gaduuda waa $40 dhiibay naagtii dhehaysaa tahay naaya naagtii habeen iyo maalin baahay ku seexataa tahay oo bogeeda iyo beerkad isku dhaco noocaas u eg noocii musqulaha lagu dhaqanayaa tahay
markasta inaa qof soo istaagtaa caatimi markaa horta adiga caatimaysid noloshaada ka soo warhaay markaas qof u caatim ani waxaa balan ee maslaxooy haddaad warka badisid xamar waa lays arkaa dadka caanka meelahay tagaayaan waa la ogyahay ilaa caannimaa suxuun ku doonaysa habeenii maalin laifkana isla ogtihiin catoosh wuu idilayaa laifkaa isku ilaalinaya maalinta kale catoosha laifkasaan igu yeelayaan sugaa ani naaya haddaa naagtiid adiga catoosh car hal sano isqabaada car hal sano isqabaada hal sano dhammaato dhalata madaxweynahan cusub sanadkan la dooranayo oo ka dhiman 6 beri soomaha 6 beri soo kabadhin 4 sano xilka mahaan doono car hataa 4 waxaa kaloo fariin u soo dirtay Fartuun Balbalaarka xaaska Catoosh Yar oo jawaab kulul ka bixisay waxayna leedahay ilmaha adaaba soo tuurtaba inaa isku dadashay ninkaas miskiinka ilaahay dartiisa ku cafiimaahina inaa isku dadashay bariidaad iyo kaniiniyaal ilmaha kas u soo tuurtinaaya taasna adiga cadaabku mutaysanaya waana lagu qor qof weyn tahay saqiir xalaal inaa soo tuurtay naa saqiir xalaal diloo saataybe taada kale markaa aadis Kenya lesbian ahayd naagaha Kenyaata u soo raaxeynaysa ya lacaga ku qaadanaysa dabada u soo dhaqaysa ninkaada waxa sharaf dhacay ii tahay ka joogo ku dhahay Muqdisho imaatay inaa ka joogtay ahayd ya waa ka joogweysay lesbian nimadaada inaa wada taartay ugu adkeysan waynaaya iyo xashish cabkaada iyo qaadkaada ugu adkeysan waa ku furnaaya baastaradee naag sharaf leh maxaa u noqon weysay naagtiisa waa isdagaan dhexdeena maxaa ku soo galiyay taada kale Catoosh wax walba oo sheey ma ogtido dirdiroole adduunka meel xuna u dambeynaysa ma ogtahay ani Catoosh wax walba oo ii sheegay wuxuuse ii sheegay midqaanaan in aad dhahday maslaxa cunugeeda maxaa ku yahay iska fogay iska fur maxay ku haysaa anaa gabar oo maxaa lahaay oo bikraa ku daraayo ma fahantay naahoy meesha wax ka sheegaysid dirdiroole sidiisaba waa la ogaadaa sirtiis ma ogtahay sirtaada dhan waa la ogaadaa waana ku dhamaatay waxaa la saddex xoolo meesha ku soo ceeba ku dambeynaysa ceebaan ku dhacday ma fahantay ina dhahday maxaa la dhahay Catoosh naagtan iska fur ya naagtan iska fur Catoosh naagtan iska fur ina dhahday cunugaani iska geey aabihiisna ina adiga wacdi ninkaas cunuga ka dilay ka soo wada aan dhahdinaaya wax walba waa ku fadhiyaani maalmahan dambe waxaa baraha bulshada ku soo batay waxyaalo dhaqan xumo oo baraha bulshada aanan hore loogu aqoonin waxaan leenahay baraha bulshada waxyaalo badan oo culum iyo waxyaalo fara badan ayaa looga faa'iideystaa marka waxaan leenahay waxyaalaha arrimaha qoyska iyo waxyaalaha dadka bulshada kicinayo in laga dhaafo baraha bulshada iyo dagaalkan iska qabsiga socday Catoosh iyo xaaskiisa